Taliban ayaa ku dhawaaqday inay hareereysay gobolka kaliya ah ee ka soo horjeeda xukuumadeeda sida uu sheegay hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda isagoo ugu baaqay falaagada in ay wada hadal ay la galaan Taliban tan iyo qabsashadii Kabul bisha aanu soo dhaafnay dhaxbartamaheedii gobolka Buuraleyda ah Banshir ayaa waxa uu ahaa gobolka kaliya ah ee ka soo horjeeda Taliban inkasta oo uu sidoo kale oo dagaal ka dhacay gobolkaasi lagu magacaabo Balan ee dariska la ah ee u dhaxeeya Taliban iyo sidoo kale maleeshiyaadka deegaankaasi oo dagaal ku dhaxmaray ciidamada uu hogaaminayo Ahmed Massoud oo uu dhalay hogaamiyihii hore ee caanka ahaa ee la dagaalamay Taliban Ahmed Shah Massoud iyo sidoo kale dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyaadka dooxada ee Banshir iyo sidoo kale haraadiga ciidanka Afghanistan ayaa la dagaalamay kooxda Taliban oo halkaasi isku urursaday qodbado la duubay oo lagu hadlayay dadka reer Afghanistan ee gobolka Banshir ayaa waxa hogaamiyaha sare ee Taliban Amir Khan Muttaqi waxa uu ugu baaqay kooxda in ay ka soo horjeedaan Taliban ay hubka dhigaan doonayaan in ay wada hadal la galaan kooxda ay ka soo horjeedaan oo ay Taliban aysan dagaal ku qaadinin Imaarada Islaamiga ah Afghanistan waxay hooyay u tahay dhammaan dadka reer Afghanistan ayuu ku yiri wareysigiisa kooxda Taliban ayaa cafis u fidisay dhammaan dadka reer Afghanistan ee la soo shaqeeyay ciidamada shisheeye 20kii sano ee la soo dhaafay laakiin dad badan oo ka baqaya argudasho ayaa waxay ka sii qulqulayaan xuduudaha iyagoo isku dayaya in ay ka cararaan wadanka aan badda lahayn Muttaqi waxa uu sheegay in ay Taliban ay dadaal badan ay sameysay si wada xaajood ay ula gasho hogaamiyaasha xoogga mucaaradka ah ee Banshir laakiin waxa uu sheegay in aan wax natiijo ah laga gaarin taasi oo ku tilmaamay nasiib darro Taliban waxay afar dhinacba ay ciidamo ay ka dhigtay gobolka Banshir waxaana ay ugu baaqeen xoogga ka soo horjeeda in aysan jirnin sababaha ay ula dagaalamaan maadaama sida oo Muttaqi uu sheegay aysan la awood dhamayn oo ay kooxda Taliban ka awood badan tahay ciidamadaasi sidoo kale kooxaha kale ee ka soo horjeedaba waxaan arki doonaa wararkeena kale oo aanu ku fiirin doonaan maanta dawladda Britain ayaa waxa ay wada hadallo la bilowday xoogga Taliban si ay ula xaajooto wada xaajoodna ay uga gasho sida ay u soo saari lahaayeen dadka haysta dhalashada Britain iyo kuwa reer Afghanistan u shaqeynayay askartooda intii ay ku sugnaayeen wadankaas Afghanistan 20kii sano ee la soo dhaafay wakiilka gaarka ah ee Britain u qaabilsan Afghanistan xilligan kala guurka ah oo lagu magacaabo Simon Gas ayaa waxa uu u duulay magaalada Doha ee dalkaasi Qatar si uu ula kulmo wakiilka Taliban sida lagu sheegay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay dawladda Britain isla arrimaha Doha intaan ka guda bixinay Doha wararka ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in danjirihii Afghanistan u qaabilsanaa Mareykanka laga helay xanuunka COVID-19 danjirihii u qaabilsanaa Afghanistan Mareykanka Rose Wilson ayaa waxa uu la xanuunsanaya xanuunka COVID-19 kadib markii lagu sameeyay baaritaan caafimaad oo laga helay xanuunka Ambassador Rose Wilson oo dhawaan ka soo boqolay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul ayaa waxa uu haatan ku sugan yahay caasimadda dalkaasi Qatar ee Doha wargeyska Politico ayaa markii ugu horeysay baahiyay in danjiraha laga helay xanuunkaasi balse ma kala cadda in la dhigay isbitaal amaba uu si gaar ah oo si shakhsi ahaaneed oo isku karantiilay waxa uu danjiraha la socday diyaarad military oo ugu dambeysay oo Mareykanku uu maalmo ka hor ka soo amabixiyay garoonka Kabul ee dalkaasi Afghanistan waxaana safarkaasi ku helinayay Major General Christopher waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka wali kama aysan hadlin xaaladda Ambassador Rose Wilson iyo haddii ay jiraan xubno ka tirsan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Afghanistan oo laga helay xanuunka COVID-19 Afghanistan ayaanu dib ugu laaban doonaa kooxda Taliban waxa la sheegay in ay awood gaar ah ay leedahay haddaba sidee ayay u ekaan doontaa xukuumadda ay soo dhisi doonto kooxda Taliban ururka Taliban ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay dhisi doonaan dawlad loo wada dhan yahay oo dumarka ka qayb noqon doonaan balse aan loo dhiibi doonin xilalka sarsare hoggaanka sare ee Taliban ayaa dhowrkii maalmood la soo dhaafay u fadhiyay shirar ay kaga areensanayaan sida ay u soo dhisi lahaayeen dawlad ay iyagu hoggaamiyaan oo u furfuran dunida inteeda kale afayeen u hadlay Taliban ayaa dhanka kale sheegay in ay dhawaan la furi doono garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul oo shalay ciidamadii ugu dambeeyay ee Mareykanku ay ka baxeen haddaba waxa ay isweydiin mudan nooce ay u ekaan doontaa xukuumadda ay Taliban ay soo dhisayso Cabdirmaan Xadaana oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka ayaa falanqeynaya dawladdan ay dhisayso Taliban sidoo ka warqabno heshiisyadii hore ay gashay
ay markii dawladda ay wadahadal la galayeen ayaa arrimaha aad looga dooday waxaanay dawladdaasi mar kastaba ay ku dhisan tahay diinta islaamka sida ay sheegtay oo weliba qaybteeda sunniga ah oonay marnaba kala gaban inay wixii dhaqanka islaamka uu diidan yahay marnaba aanay ogolaanahayn marka dawladda oo maanta markii dabiixullah uu ku dhawaaqay Reuters ay sheegtay inay tahay week laakiin maanta haddana bayaan kale ka soo daba baxay ay ku beeninayso inay week tahay marka laba week ba ku magacaabaysaa labada week kadib sida la filayo uu wax ka tilmaamay wuxuu buu sheegay inaanay dumarku awoodda weyn dawladda la dhisay inaanay ku jirin laakiin meelaha hoose ay ku darayaan waa waxaan hore loogaga baran golahan wasiirada ay magacaabayaan u eegba golaha wasiirada inkastoo golo madaxeed ay leeyihiin dumarku ma jiraan sida ay sheegeen laakiin meelaha hoose hadday tahay booliska hadday tahay waxa weeyaan maamulka TV-yadii idaacadihii wixii dumarku ay ka shaqayn jireen hoose oo dhan uma diidana marka taasi horta waa isbedel weyn oo markii ay qabsadeen 97 ilaa 2000 laga gaarayay dumarku marnaba looma ogoleen meelaha hoose iyo meelaha saraba marka waxaad moodaa bisayl imanka ka muuqda inay yihiin waana dhici kartaa in marka ay isbedelaan ee dawladda ay saan u dhisaan in dumarka laftooda ay wasiir noqdaan sida Iran oo kale iyo ikhwaan muslimiinka iyaga laftooda markaad eegto Morocco iyo Masar waxa weeyaan baarlamaanka iyo wasiirada uma diidaan dumarka marka wadaadada waxaad moodaa bisayl badan inuu ka muuqdo ay doonayaan in dumarkii ay ka qayb galiyaan laakiin heerkii wali weynaa ilaa hadda kama qayb galin sidii sheegayaan run ahaantii imanka xiriir way la leeyihiin Ruushka iyo China iyo dhammaan mesela Turkiga oo kale way soo dhaweeyeen iyo Qatar bay imanka waxay u dhiibayaan baayin madaarkii iyaga maamulaya laakiin reer galbeedkii wali wadiga arko oo dirtaba safaaradahoodii oo dhan waxay u wareejiyeen Qatar oo wixii Afghanistan ku saabsan safaarada Qatar ku taala ee reer galbeedka oo dhan halkaas ayuu la xiriirayaa si cid ay soo baxaysay haddii arrimo kale ay kaga xirayeen Afghanistan marka waxay dirtaba bilaabeen inuu noqdo xadku Qatar wixii ku saabsan Afghanistan marka taasi waxay muujinaysaa in reer galbeedku wali aanay u bislayn inay Taliban xiriir la yeeshaan laakiin Taliban imanka awoodda waxay saaraysaa inay xiriirka ay soo celiso oo reer galbeedka ay tusto inaanay wax dhibi jirin waxa aad loo filayaa in Iran iyo China inay xiriir la yeesheen xiriirka ay la yeesheen inuu ahaa xiriir inay wada shaqeeyaan marka intii imanka Mareykanku ay la dagaalamayeen waxaa aad loo badinayaa in ay xiriir la yeesheen Iran oo wax badan ay ka wada hadleen muhiimsan tahay sida ay Iran baa u tixgeliso Hamas iyo jihaad oo ah niman sunniyiina oo Filistiin ka dagaalamay isla markaasina ay caawiso inay iskaashi ka yeeshaan inay dawladooda ay dhisanayaan aanay ku soo faragelin shiicanimada waxa weeyaan waxa sideen ka warhabno in Afghanistan qayb ayaa markaasi qayb yar baa shiica ka oo Iran inta soo xigtaa inaanay sidii 1996 ay sameeyeen oo ah in sunniga ay ku qasbaan inaanay ku qasbahaynin oo haddii shiicanimadooda ay haysanayaan laakiin iyaga laftooduna aanay kuwa uga soo faa'iideysan inaanay soo faragelin Afghanistan marka heshiis baad moodaa aan qornayn inay wada galeen waana ta muuqata imanka inay ka wada shaqeynayaan aad aragto in Iran madartaba ganacsigeedu uu kordhay intii Taliban ay qabsatay oo lacagtii Afghanistan toos ay uga shaqeynayso Iran marka xiriir wanaagsan baad moodaa inay hore u bilaabeen laakiin kulliba waxaynu ogaan karnaa xiriirkaasi intuu jiri karo bilaha iyo sanadaha soo socda wararka ugu dambeeyay caalamka maalinkii 2 jeer ayaad ka daawan kartaan boggan aad nagala socotaan anigoo Maxamed Cabdiraxmaan ayaa idin la socodsiin doona